bismillahi raxmaan raxiim qodobka waxaynu ku yar dul istaagaynaa window maxaa loo yaqaanaa Linux settings-ka ayaan ku dul istaagaynaa. Now waxaad taqaanaa desktop environment-kan desktop-ka waa taqaanaa markaasi functions-kani. Kabacdi waxaan sii dhex gelaynaa markaasi applications-kii gudihiisii settings-kan gelaynaa. Waa settings-kani waxaan u dhex gelayaa waa meelaha ugu yara muhiimsan inuu marar badan uga baahan karno inaan wax ka bedbedelo. ugu horeyn settings-keeni oo dhan ba halkan inoo imanaya. haddaad hoos u degtid all the settings are here, dhammaan settings-kii oo dhani halkan ay yeelaan. nadwoga isaga hadda waxba badan kama odhanayo, waayo waxaynu u baahannahay nadwega waqti gaaraynu u baahannahay. oo nadwegeena markaan galno kabacdi nadwegeena waxaan arkaynaa 100 megabit per second inuu connection ku yahay. kabacdi waxaan u baahnaanaynaa wax loo yaqaano inaan nadwegeena IP address-yadiisa eegno. IP address-yada iyo kale for example haddii lagu yidhaahdo IP address-yada bedel oo waxaad ka dhigtaa IP address-yo halkuu ka yahay DHCP Dynamic Hosting Configuration Protocol halkuu ka yahay waxaad ka dhigtaa lagu yidhaahdo manual oo si aanu isku bedbedelin halkan aan ka bedelinaa. manual baan leenahay. manual markaan nidhaahno kabacdi waxaan u bedeli karnaa markaasi auto ka dhaafaynaa auto ka qaadaynaa. automatic yani waxa weeye si toos u hel ayo wuxuu ku kala duwan yihiin markaasi iyo manual. markaasi auto haduu yahay automatic uga soo qaadanaya from the DHCP gu toos uga soo qaadanaya DNS ki iyo waxyaabaha oo dhan halkan la gelinaya. laakiin hadda inagu ma baahnin inaan waxa soo dhan sameeyno. waxa u baahanahay inaan faahano wax loo yaqaano in manual laga dhigi karo waa koow oo router-ka uu ka soo qaadan karo. manual inaan ka dhigi karno bila router uu noqon karo. kabacdi waxaynu sameyn karnaa hadda updating mayna sameynin that's why markaa kuwan aan active inoogu ahayn. markaa separate IP address domain comma ayaa kala qaybinaysa dabeetana IP address-kan ku qoraya 192.168.10.1 oo kale for instant ayaan ka dhigayaa. dabeetana waxaan odhanayaa IP address-kaygu waxa weeyaan maxaa la yaqaanaa halkaasi waxa weeyaan separate IP address with comma. okay kana waxaan leeyahay markaa IP address-ka siinaya subnet mask default gateway-gi matrix-ki ka waxaan leeyahay 192 IP address-kaygu tusaale ahaan kaasi waa DNS server-ka aan ka dhiga markaasi Google oo kale for example 8888 aan ka dhigo. dabeetana kana idhaahdo 192.168.10.1 weeyaan IP address-kaygu aan idhaahdo. kabacdi waxa weeyaan subnet mask 255.255.255.0 ama net mask-na sidoo kale waa loo yaqaan. gateway-gu muxuu noqon karaa? gateway-gu waa kanaan leeyahay 192.168 adaa yaqaanaa markasta la adigu IP address-yada rabtid inaad siisid adiga ayay ku jirtaa. 254 ayaan leeyahay. metric type-ka tusaale ahaan waxaan odhanayaa waa 10 whatever it is. marka IP address-yo kale haddaan siinayana saasi lamida ayaan u siinay. taa markaan ka tago waxaa loo baahnaanayaa markaasi waxaa loo baahnaanayaa wax loo yaqaano waxaa loo baahnaanayaa intaa markaan ka tago settings-kii iyo information-kii markaad saas oo kale u gelisid waxaad u baahnanaysaa sidoo kale maybe IP version 6 na sidoo kale waad u baahnaan karta. hadda laakiin ma doorbidayno laakiin IP version 6 na isagana sidoo kale halkii static waxa ugu jira ama waxa halkii ugu jira waxa loo yaqaano manual-kii oo kale ayaad halkan siin kartaa. isagana sidoo kale security-gi iyo information-kii la xiriiray iyo waxyaabahan halkan aad ka siinaysaa oo wax loo yaqaan MD5 laakiin hadda uma baahni waxyaabahaas oo dhan. laakiin settings-ka internet-ka halkaas laga bedelaya. haddaad doontid waxaad ka samayn kartaa wax loo yaqaano VPN waa virtual private network. markaa isagu Linux wuxuu adeecaa wax loo yaqaano point to point tunnel protocol from source-ka router-kaaga computer-kaagan ilaa iyo server-ka kale aad ku xidhaysid inuu kuu sameeyo wax loo yaqaano virtual tunnel aanay no one can identify it. markaa waa very important. intaa markaa ka tago bluetooth-kii on iyo off haddaad doontid demin kartaa haddaad doontid noo daari karta. bluetooth on I don't know what wrong with it. okay safe mode. okay bluetooth-keeni halkan aan ka dooranayna yes power on iyo power off tiisi waa taas. background okay background-kan halkan inoo yaala ee hadda kan ah ayaan bedeli karnaa. background-ka ubaxaasaan ka dhiganaynaa. ubax haddaan ka dhigano ka baxno ubaxaasu inoo noqonaya. marka background-ka adiga ku ciyaari doona. appearance-ka haddaad baahan tahay inaad wax ka bedeshid
isagana waa halkuu midabka casaanka iyo waxyaabaha ka yahay some sort of green oo kale aad ka dhigan kartaa green baad ka yara dhigi kartaa appearance-kaaga size-ka waxyaabahaas oo dhan marka laakiin hadda waxba bedbedeli mayno marka green markaan ka dhigna waa ka aad arkaysid background some sort of green buu ekaanaya folderada iyo waxyaabahaas casaankiisi haddaan kaa doorano midabka casaanka isagana casaan buu inoo noqon doonaa adiga arkay folderka dushiisa sare marka defaultkiisi aanu soo celino marka ka isagana intaasaan ka leeyahay appearance-ka markaan ka tago waxaan u baahnaanaynaa markaa notificationska isaga iska dhaaf update hadduu jiro waxyaabahaas search multitaskis haddaad doonaysid shaashado badan inaad ka dhigtid computerkaaga ood multitaski ka dhigtid oo sida windowska oo kale aad dhowr shaashadoodu kala duwan hadduu screen weyn aad leedahay oo kale si good important applications hold the applications are here applicationskan markii xagga kale ka tegaynay ayaan xaggana sidoo kale ka tegi karnaa hadda uma baahnin privacy-ga offline-ka sharing-ka yes sharing u kaalay sharing haddaan share garaynayno computerkeena tusaale ahaan horta magaca sharing-ku kan u noqonaya sharing button-ka haddaan daaro desktop sharing haddaan sameynayo media haddaan share garaynayo foldero wixii la halmaana halkana laga share garaynaya taa markaan ka tago waxaan u baahanahay inaan eego soundka oon u baahni power of-kana xaggii horaan kusoo eegayay soundka iyo waxyaabahaas waxaan u baahnaanayaa markaa inaan hoos u dego okay desktopka waan joog yes displayga tusaale ahaan ma landscape baad ka dhigaysaa sidan u jiifayaa mise portal baan ka dhigayaa portal haddaan ka dhigo u taagnaanayaa adiga yaqaana kaad adigu xiisaysid markaa haddaan apply idhaahdo apply garaysmay haddaan apply idhaahdo waxaan arkaynaa markaa portal saasoo kale u noqonay waa kabacdina waxaan leeyahay keep change haddaan idhaahdo saas ku ilaalinaya haddii kale laakiin waxaan leeyahay ka laabo reverse ayaan leeyahay markaas keep the changes reverse-kii baan ka laabtay markaas saas kaaga baahan yahay keyboard iyo touchki iyo waxyaabihii aan dhahday mouse touchpad ma mouse baa isticmaalaysa ma touchpad baa isticmaalaysa halkan waa settingskii caadiga ahaa windowska oo kale kaalay printer haddaad printer ku daraysid halkan aad kaga daraysa haddaad waxyaabo movable devices ay banaanka kaga jiraan sida USB CD waxyaabahaas oo dhan halkan waad ka monitor garayn kartaa marka nadwogaaga laguma qaldi karo xagga gudahana waad ka eegi doonaa mar dhow sida loo eego aan baran doonaa canjaladaha iyo waxyaabaha banaanka kaga imanaya waan eegi doonaa intan dambe waa iska common colorka hadday tahay regionka hadday tahay accessibility-ga userka imika inagu aan isticmaalayna waa kaa haddaynu usero kala samaynaynin maan sheegin usero kale sida loo create garay waan baran doonaa laakiin halkan kama create garayno mostly xagga command line-kan doorbidi doona date and time-keenu waxa weeyaan waa auto internet ka soo qaadanaya adiguna waad bedeli kartaa maanta waa 28 bisha 9aad af Soomaaliga ugu qoray 2023 marka intaasi aan hadda ku soo koobo